xildhibaanka degmada Kaamakunji Mudane Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ku gacan saaray natiijadii ka soo baxday doorashadii isreebreebka xisbiga Jubilee xilli uu ka qayb galayay banaanbaxyo ay dhigayeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii. Arrimaha doorashooyinka iyo banaanbaxyadii maanta ka dhacay xaafadda Islii waxaa inooga qayb galay wariyaheena Cabduqaadir Jijiile warbixintanna inooga diyaariyay. Shalay ayay ahayd markii natiijada isreebreebka xisbiga Jubilee qaab maldahan loogu dhawaaqay waxaana isla xilliga goobta ka bilowday buuq ay sameeyeen taageerayaasha xildhibaanka degmada Kaamakunji Yuusuf Xasan Cabdi. iyadoo taalaga duulaya ayaa shacabka Soomaali Kenyaanka ah salaadii khudbada kadib waxay banaanbax ka sameeyeen xaafadda Soomaalida ee u badan tahay Islii waxa ayna ku dhawaaqayeen Yuusuf Xasan wala musuqmaasuqay sidoo kalena waxa halku dhig u ahaa haddii Yuusuf la waayo Jubilee way ku deysay. Mudane Yuusuf Xasan Cabdi oo soo gaaray xaafadda Islii ayaa shacabkii u codeeyay ugu mahadceliyay sida ay ugu codeeyeen waxa uu sheegay in codkiisii laga shubtay balse uu ku guuleystay isreebka xildhibaanka degmada Kaamakunji waxa uu sheegay in uu hadda soo qaadan doono shahaadada ugu tartami doono xildhibaanka degmada Kaamakunji xilliga doorashada dalkani Kenya ay dhacayso. laxaad kale heed u soo baxdeen inaad maalinayto hiil iyo hooba inaad gaashaan ii noqoteen doorashadii ka dhacday Kaamakunji aniga ku guuleystay 10,000 oo qof baa soo baxday codkooda ii ridatay aad baad u mahadsantihiin waxaana niminka doonayaa xisbiga Jubilee ninkii ku guuleystay doorashadaas ee ugu tiro badnaa oo Yuusuf Xasan in la siiyo tigidhka iminka waxaa ku soconaa xarunta xisbiga Jubilee igala soo qayb gala waan hor istaagaynaa certificate-kii aan ku guuleysanayna waan soo qaadayaa waxaan doonayaa si nabadgelyo ah oo xasiloonahna inaan u samayno annagu xaqeena un baan rabnaaye wax ma xadi rabno annagu xaqeenaan rabnaaye dulum ma rabno midda kalena dadkii ugu cod badnaaye maalintaasi soo baxay Soomaali bay ahaayeen 4,800 baa halkan ka ridatay subaxdii siday u soo fariisteen gabalka ugu dhacay waliba waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamooyinka haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin. natiijadii doorashadii shalay ka dhacday degmada Kaamakunji ayaa wali la shaacin wuxuuna xildhibaanka laga soo doortay degmada Kaamakunji gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay Islii uu shaaciyay in aanan u aqbali doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashadaasi oo ku aadan in laga guuleysto waxa uu sheegay in doorashadii shalay ay ahayd mid musuqmaasuq ku salaysnayd. Cabduqaadir Jijiile TV Somali Cable Nairobi.